صلوات عليكم السلام عليكم السلام حمريت يجلي أنا كل صلوات عليكم السلام بروفيسور سمير عبدي جامع نشر قريب برنامج إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هبين وناكسان مeel kastoo dunida dacaladeeda ka joogtaan halkani waa Empire of the Wall oo idin soo gudbinaya barnaamijkii faaqidada siyaasadda iyo arrimaha bulshada iyo taariikhda Soomaalida laba sida aan nooga barateen waxa aan soo galnaa saacadahan oo kale ama goorahan oo kale dhagaystay ama daawade wuxuu daaran yahay caawa barnaamijka faaqidada siyaasadda iyo arrimaha bulshadu soo dhaweyntii suldaanka ruuxiga suldaan Abshir Maxamed Ducaali waxa kale uu daaran yahay oo kale barnaamijka oo aan ku qaadaa dhigi doonaa kuna dheeraan doonaa garab siyaasadeedka dhawaan lagaga dhawaaqay magaalada Addis Ababa iyo garabka la midoobay isaguna Awdal State oo ahaa urur siyaasadeed muddo dheer soo jiray oo guun ah isagoo markaas aan ka hadli doono insha Allah qaybihii kala duwan ee uu soo maray ururka iyo guulaha uu imika gaaray insha Allah hadoo Allah ilaaho barnaamijkeena faaqidada siyaasadda caawa labada qodob ayuu daaran yahay waxaan maartay ku sigi doonaa imkana qadar moosiga ayaynu ku wada sugi doonaa insha Allah share gareeya barnaamijkan inoo share gareeya وهستي أودل ستيت هبلدا أودل ستيت ولا هرية البان أيا دادهين يا هيك نشر قريب برنامج نشر قريب جروبنا كتورة إن شاء الله. إبراهيم بيكي وانت سلامي. سهيل
وكان قاضي نوشر قراية برنامج كشير قراية احنا نقدر نسوي نوشر قراية FIFA أول استيت أول استيت ما سكروا أول استيت ما سكروا أول استيت ما سكروا نوشر قريب روشة أما هادي لا أما هادي لا إسرائيل إسرائيل أضل إسرائيل أضل إسرائيل أضل إسرائيل نوشر قريب روشة هويا هويا شنو هذا؟ سلطان خبري يا قلباتك ونوشر قريب برنامجك نوشر قريب والله سنتاي وكو سلام يا سلطان حاجي شروع أفضل كو سلام يا شارك على وقبته أول استيد لما أسكروا لما أسكروا هللويا هللويا ونوشر قريب برنامج ده kuwaasina waxay ahaayeen kooxda horyeel baan oo ah gobolada Awdal State oo iyaguna markaasi daadihaynaya heestii Awdal State caawa waxaan idin leeyahay habeen wanaagsan meel kastoo dunida dacaladeeda ka joogtaan ummadda Soomaaliyeed guud ahaanba gaar ahaan waxaan caawa si gaar ah u salaamayaa ummadda gobolada Awdal iyo barnaamijkii halkani waa
Empire of the Wall oo idiin soo gudbinaya barnaamijkii faaqiidada siyaasadda iyo arrimaha bulshada iyo taariikhda Soomaalida. Laba sida aad nooga barateen waxa aan soo galnaa saacadahan oo kale ama goorahan oo kale. Dhageystay ama daawada wuxuu u daaran yahay caawa barnaamijku faaqiidada siyaasadda iyo arrimaha bulshadu. Wuxuu daaran yahay caawa suldaanka ruuxiga suldaan oo si fiican lagu soo dhaweeyay deegaankiisii markii uu ku yimid. deegaanada lagu soo dhaweeyay waxa ka ugu horeeyay magaalada Dila Gabiley Dila ilaa iyo maartay Goroya Cawl ilaa Boorama iyadoo dadku wadooyinka ay tumanaayeen kumanaanku suldaankaas oo ah suldaanka guud ee gobolada Awdal suldaanka ugu faca weyn ama suldaanka aan oran karo waxa weeyaan wuxuu haystaa qalbiyada ugu weyn ee gobolada Awdal suldaan Abshir oo ah suldaan geesi ah suldaan maartay had iyo jeer maartay dadku aad u jecel yihiin suldaanka ayaa markaasi si diiran oo wanaagsan oo qurux badan dadku aad ugu soo dhaweeyeen waxaan barnaamijka caawa qaada dhigi doonaa guud ahaanba suldaanka sida loo soo dhaweeyay iyadoo markaasi aan idin tusin doono fiidiyowga laga soo duubay iyo sida quruxda badan leh ee qaayaha leh ee sharafta leh ee gobolada Awdal u soo dhaweeyeen guud ahaan Gabiley Awdal iyo Salal looma kala harin suldaanku waa suldaan sharaf iyo ciisi kule dadka gobolada Awdal runtii ahaantiina ahaa maartay markii ay u geysteen xukuumadda isku magacawday Somaliland maartay taliska nugul ee uu ka taliyo Muuse Biixi uu Hargeysa uga taliyo markay xaq darro u geysteen kadibna ay ka dhigiyeen dadka gobolada Awdal kadib markii suldaanka loo soo celiyay xorriyadiisii dib ugu soo noqdo waxa weeyaan wuxuu suldaanku markaasi shir uu markaasi uu ku qabtay hotel Hargeysa ku yaala oo markaas uu ku tilmaamay in guud ahaanba ay maartay uu mahadnaqayo intii jiibsan weydii inta ka garab dhawaa ee arintiisa ka qayb qaadatay guud ahaanba iyo mudaharaadyadii guud ahaanba ay dhigeen ummadda gobolada Awdal ee magaalada Boorama mudaharaadkii weynaa ee ka dhacay iyo waxa kale uu bogaadiyay suldaanku ka hadlay ninkii dhalinyarada ahaa ee maartay loo geystay gacanta ka xaq daran iyo booliiska maartay soo shaqama taliska nugul ee SNM haraga SNM uu geystay Muuse Biixi ee dawladda jeeganaysan ay u geysteen wuxuuna Ilaahay uga baryay inuu Ilaahay u booga dhariyo isagoo inuu ninkaasi marka aad u fiican yahay xaaladiisuna wanaagsan yahay wuxuu ku tilmaamay inuu yahay geesiyada gobolada Awdal uu ka mid yahay xorriyadiisana uu dirirayay waxaan markaa barnaamijka caawa ku qaada dhigan doonaa insha Allah suldaanka iyo maartay ii soo sheegeen sida diiran ee lagu soo dhaweeyay gobolada Awdal waxaan markaasi qaada dhigi doonaa oo kale isagana barnaamijka oo aan ku qaada dhigi doonaa Awdal State Awdal garab siyaasadeedka Awdal State oo markaasi muddo dheer soo jiray ururkaasi urur siyaasadeedkaasi oo lagu tilmaamo muddo ilaa 40 sano ku dhawaad ilaa 30 sanadood inuu soo jiray Awdal State iyadoo marxalado kala duwan uu soo maray ayaan isagana qaada dhigi doonaa laakiin waxaan ku bilaabi doonaa oodba siday u kala sareysaa loo kala qaadayo waxaan soo qaadi doonaa barnaamijkii suldaanka iyo soo dhaweyntii baaxadda ahayd ee ballaarneyd ee quruxda badneyd ee lagu soo dhaweeyay suldaanka ayaan insha Allah soo qaadi doonaa insha Allah barnaamijka inoo sheer gareeya barnaamijka guud ahaanba ummadda waxaanu halkan ka salaamaynaa ummadda gobolada Awdal oo guud ahaan salaamo kala duwan u soo marinaya hawada meel kasta ay joogaan daawasho wacan waqaa suldaankiyo
magaaladii baa dhaqaaqday Muuse yaabay بورما دشيديو الله أوضل على فيديو دلا صبر وكا أفكاك عنا لغو قبي إذا عمر برغط دشيديو وشيالة سلطان كالة inoo sheer gareeya barnaamijka abshir baale dadkii gobolada Awdal oo guud ahaanba iskugu soo baxay marka laga soo bilaabo magaalada Gabiley ilaa iyo Dila iyadoo suldaanku markaa imika uu hadlayo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته maanta aad iyo aad baan u faraxsanahay inaan waxa intaa leeg qabtay maan moodayn aad iyo aad baan u faraxsanahay waan inii mahadnaqayaa nin geesi ahaayoo la odhan jiray jiif caaqil cali cilmi suldaan nin la odhan jiray ayaa wafdigii xamar ka iman jiray ayaa odhan jiray had iyo jeer salaam baan madaxweynaha iniiga sidnaa bay odhan jireen markaasuu yidhi war kuwiinaan xamar ka yimaadaa ma salaamo unbaad gurtaan maanta dadka waan salaamayaa uun war kale ma jiro waan inii mahadnaqayaa waxaa kaloon u mahadnaqayaa waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa oon idinkana idii sheegayaa nimankii madheere igu hayay oo aan niman qaaliya oo niman sharaf laahaa oon u ballan qaaday inaan u mahadnaqi doono waxa ay wanaagsan wallaahi inaanan maalin keliya daraya arag maalin keliya nimankaana waan u mahadnaqayaa taliyaha xabsiga ugu horeeya qorsheel jibriil baa ku xiga waxa weeyaan nimanka saraakiil xigeenada askarta nimankaasi asluubta la sheego iyaan ku soo arkay waxa wanaagsan ee la arka waa la sheegaa waan u mahadnaqayaa nimankaana dhammaantii shacbigana waan u mahadnaqayaa dadkayga iyo dadka kale ee Soomaaliyeed ii hadlayba waan u mahadnaqayaa iyo warbaahinta aad iyo aad baan inigu mahadnaqayaa waan idin salaamayaa waan idin ducaynayaa salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kaasina wuxuu ahaa suldaan abshir maxamed ducaale oo lagu soo dhaweeyay magaalada gobolka Awdal guud ahaanba oo iyadoo dadkuna ay si fiican u soo dhaweeyeen
kadib markii suldaanku uu aada si raynrayn iyo farax leh dadku ay ka muuqdeen wejiyadooda. guud ahaan dadku waxay aada markaasi ugu dhawaaqayeen ereyo kala duwan, ereyadaas oo ahaa halkudhigaygu ahaa suldaanka, suldaan abshir, suldaanka soo dhawow, suldaanka markaasi suldaanku wuxuu ahaa suldaan maaragtay gobolada owdal, salaadiinta gobolada owdal ugu facweyne, iyadoo markaasi si xaqdarro ah ay u xidhay maamulka isku magacaabay Somaliland ee taliska nugul ee jeegaanta Muuse Biixi uu ku aramiyay magaalada Hargeysa. haddaba halkani waxa weeyaan waa Empire of the Wall oo idin soo gudbinaya barnaamijkii faaqidaada siyaasadda iyo arrimaha bulshada iyo taariikhda Soomaalida. aalaba sidaad nooga barateen waxa aan soo galnaa saacadahan oo kale ama goorahan oo kale dhagayste ama daawade wuxuu uu daaran yahay barnaamijku faaqidaada siyaasadda iyo arrimaha bulshadu soo dhaweyntii diiranayd ee loo sameeyey ee gobolada owdal loogu sameeyey suldaanka ruuxiga ama suldaanka faca weyn leh, suldaankaas oo ah suldaanka ugu qalbiyada badan leh gobolada owdal, suldaan abshir maxamed ducaali. halkaas ayaanu kaga hadhaynaa. waxaan iminka gudagali doonaa insha allah bacda qadar muusiga dabadeed waxaan gudagali doonaa oon faaqidi doonaa urur siyaasadeedka Awdal State oo ahaa urur fac weyn ama guun ah oo soo jiray ururada, isagoo waxaan soo qaadan doonaa iyaduna ururkaasi ururkii ka horeeyay ee dhalay ee la oran jiray SDA iyo hogaamiyaha imika gacanta ku haya ama madaxweynaha Awdal State oo ah isaguna nin siyaasi fac weyn ah oo muddo dheer ku soo jiray siyaasadda iyo nimankii dhaliyay uu ka mid ahaa SDA oo ah Professor Cabdisamed Nageeye oo ilaa imika haya iyo guulaha ay gaadheen iyo maamulada kala duwan iyo nidaamka ay soo mareen ayaanu ka sheekayn doonaa insha allah. halkani waa Empire of the Wall oo idin soo gudbinaya barnaamijkii faaqidaada siyaasadda iyo arrimaha bulshada. haddana ku soo dhawaada qadar muusiga iyo insha allah waxaan maartay idin bilaabi doonaa heestii oo idinku soo celin doono. waxaan ku xogsiin doonaa heesta maartay soo shaqo insha allah oo dhaxla tan ayaanu ku sugi doonaa insha allah. laakiin waxaan gali doonaa heesta iyaduna gobolada owdal oo barkad cumar ay iyaduna gaadihayso. No share grey brown. waxaan maaragtay imikana geenaynaa heestii kale oo xoogaan ku nasan doono. heestaas oo ah heestii boorama baki iyo boorama iyo boon oo uu qaadayo mursal muuse.
برنامجك نو شير قرايه ان شاء الله. فردوس فايبي فردوس حزم يهستي بورما وكان قاضي مدينة درويش شاب من سلام يا سودو ولا markale iyo mar saddexaad waxaad leeyahay habeen wanaagsan. halkani waa Empire of the Wall oo idin soo gudbinaya barnaamijkii faaqidada siyaasadda iyo arrimaha bulshada iyo taariikhda Soomaalida laba sidaad nooga barateen waxaan soo galnaa goorahan oo kale ama waqtigan oo kale ayaan soo galnaa. haddaba caawa wuxuu barnaamijku daaran yahay oo daawade ama dhageystay wuxuu barnaamijkan daaran yahay caawa barnaamijka faaqidada siyaasadda iyo arrimaha bulshadu soo dhawaantii suldaanka ruuxiga suldaan abshir maxamed ducaale oo si fiican magaalada boorama lagu soo dhaweeyey oo soo dhaweyn diiran lagu sameeyey. waxaan kaloo markaa qaada dhigi doonaa insha allah oo isaguna uu daaraya barnaamijkeenu awdal state oo maaragtay garab siyaasadeed ama garab maaragtay soo sheega ururkaas oo urur maaragtay soo sheegay soo jireyna oo maaragtay hayina oo waqti dheer soo jiray. ururkaasi markaasi waxaa lagu qiyaasaa ilaa 30 sano in ka badan anigu ururkaasi soo jiray iyadoo marxalado kala duwan iyo hogaamiyeyaal kala duwan ay soo qabteen. kadib markii ururku markii ugu horeysay madaxweynihii ugu horeeyay ee loo magacaabay oo ahaa Rashiid Garyaqaan Rashiid, kadib markii uu dowladda isku magacaabay ama maamulka isku magacaabay Somaliland uu xiriir la yeeshay, kadibna markaasi halkaasi xilkii lagaga qaaday, kadibna lagu soo shirweyne la qabtay golaha Awdal State ay qabteen. kadib shirweynahaas oo ka dhacay magaalada London kadib markii lagu doortay nin siyaasi oo mug weyn ku leh ummadda dhexdiisa oo maartay professor Cabdisamed Nageeye oo nin siyaasiya ahna uu ka soo qayb galay ururkii la oran jiray SDA oo markaasi la abuuray waqtiyadii la oran jiray 80 ilaa 84 ururkaasi lagu dhawaaqay, kadibna uu ka shaqeyn jiray dalka dibadiisa. markii dambana oo u soo cagarugtay dhulka Djibouti iyadoo markaas ay
ay wada hadal la galeen dowladdii cali mahdi ee lagu dhisay magaalada jabuuti kadibna waxaa loo wareejiyey magaalada muqdisho waxaa ka mid ahaa oon caawa halkan ku xuseeyaa dhammaantoodba allah u naxariisto intii dhimatay inta noolna ilaahay caafimaad taama iyo cimri dheeriya ha siiyo waxaa ka mid ahaa oo ah nimankii guddiga golaha dhexe oo ay la dhisay oo ka mid ahaa cabdisamed professor cabdisamed nageeye waxaa kaloo isaguna abiib waxaa kaloo ku jiray xasharo oo allah u naxariistay iyo abiib oo iyaguna muqdisho ku dhintay iyo cabdi dhoolaal baa ka mid ahaa waxaa kaloo ka mid ahaa ninkii isaguna maaragtay guddoomiyaha oo ahaa ururka isaguna markaasi dhintay allah u naxariisto waxaa markaasi uu yahay siyaasi mug weyn oo baaxad leh oo siyaasadda baaxaadegaysa ama isbedelka siyaasadeed ee ka jiray geyiga soomaaliyeed ama geyiga afrikaba dad maaragtay la socday muddo dheerna la soo qaatay weeyaan siyaasiga mugga leh oo kadibna markaasi loogu magacaabay maaragtay soo sheegay loona doortay loona caleemo saaray awdal state awdal state waxay markaasi siyaasadeeda doorar kala duwan ay ka soo ciyaartay adduunka kadib iyadoo markaasi la sameynaysa dhigooga kale iyo maaragtay soo sheeg xiriiryo fara badan oo ay la sameysay wadano badan iyo meelo fara badan ay la sameysay iyadoo markaasi ayna jirin dowladdii dhexe ee Soomaaliya markay burburtay maamuladii kale kala duwanaa ee soo maray dalku uu ahaa kuwa xagaldaaca kolba xagaldaac ku jira ama maaragtay kala duwan oo siyaasado kala duwan ay soo mareen waxaa markaasi uu imika markaa loo hanqal taagay ama se tallaabada ugu horeysay ay qaadeen ama guushii ugu weyneyd ay gaadheen ay tahay markii maaragtay suldaan abubakar cilmi wabar ay garabka siiyeen markaas uu ku dhawaaqay in maaragtay isoo sheeg uu garab taagan yahay suldaan abubakar cilmi wabar oo ah suldaan markaasi kasoo jeeda gobolada Awdal halganka gobolada Awdalna markaa wada isagoo markaasi uu suldaanku uu maaragtay isoo sheeg sameeyay jabhadii ugu horeysay geyigan imika la magac baxay ama isku magacaabay Somaliland jabhadii ugu horeysay ee ka baxday ahaa suldaanku markuu uu baxay suldaanku waxaa markaasi kadibna garabkii ugu horeeyay siiyay ku dhawaaqay awdal state waxaana ku xigay siyaasiyiin kala duwan oo qaybo kala duwan meelo kala duwan maray oo aan aniguna ka mid ahaa siyaasiyiintaasi waxa ay bilaabeen United States of Somaliland oo aan xiriir la sameynay oo ah garab siyaasadeed aanu la noqonay waxaa ka mid ahaa oo kale September 15keegii oo kadibna haddana aan aasaasnay ururkaasi la oran jiray ururka sinaanta iyo cadaaladda oo markaa aanu bixinay kadib markaasi wuxuu geedigu socdaba reer guuraagu socdaba ama aanu geedigii waxaanu markii dambe isku soo biyashubanay in guud ahaan la ballaariyo caqligana la bilaariyo dibadna madasha iyo daladaba la ballaariyo kadib markaasi waxaa meesha soo baxay in lagu dhawaaqay dalada ay ku midoobeen gobolada Sool iyo Sanaag iyo Cayn Sool iyo Sanaag iyo Togdheer oo ah golis waxaa kaloo isaguna soo baxay markaasi iyadoo shirar fara badan la galay heshiisyo fara badan ay sameeyeen ugaaska iyo maaragtay garaad cabdirashiid garaad axmed maaragtay uu markaa isaguna dhinaca kale uu ka socday ee labada dhinac heshiisya waxaa kaloo markaasi iyaguna jiray heshiiskaasi sida guud ahaanba aad hor u aragteen ama se aan usoo dhignay meelaha qaarkood ee bogagana looga bogtay xalayna aan usoo qaaday heshiisyada oo 8 qodob ilaa 10 qodob oo heshiisyadaas ah lagu heshiiyey kadibna markaasi waxaa labada dhinacba u kala saxeexay dhinaca awdal state ugaaska iyo maaragtay soo sheeg 3 qof oo kale ayaa dhinacaasi heshiiskaasi ka heshiiyey waxaa dhinaca kalena heshiiska maaragtay soo galay engineer Casayr oo isaguna ka soo jeeda deegaankaasi Burco ilaa iyo dadka deega guud ahaan oo markaasi metelaya dhinaca kale heshiiska saxeexay waxaa ka mid ah Xiiray oo isaguna metelaya dhinaca Sanaag waxaa kaloo meeshaan ka maqnayn oo isaguna la socday oo arintaasi heshiiska Axmed Saciid oo ah suldaan ka soo jeeda deegaanada hadaftinimo iyo baran ama maaragtay maakhir ama aan ilaahay ka soo jeeda waxa weeyaan dhinaca markaasi heshiisyadaasi waxay noqdeen kuwa miro dhala oo kadibna la isku raaco kadibna lagu dhaliyo maamulka maaragtay soo sheeg leedahay oo ka soo baxay loogadiisina la sameeyay oo ah Northern State of Somalia
guud ahaan waxaan markaasi insha allah maaragtay aan yar gudagali doonaa qaabkaasi ay u dhaceen guusha ugu weyn ee markaa la gaadhay waa guushaasi oo ay Awdal State ay la gashay dhigeega kale iyo heshiisyadaasoo guud ahaanba dhammaystiran oo faaqidan ayaanu halkan ka soo gudbin doonaa insha allah noo dulqaata insha allah waxaana imika in yaroo qadar muusiga ayaan maaragtay yar geli doonaa wixii ka dambeeyana waxaan idin tusin doonaa heshiiskii iyo qasida u dhacay iyo xafladii balaarneed ee loo dhigay ee lagu dhawaaqay ee isagoo laga dhawaaqay kadibna waxa weyn insha allah barnaamijka saasaan u wadi doonaa wasalaam waxa weyn xoogaa qadar muusiga ayaanu ku wada nasan doonaa wixii ka dambeeyana barnaamijka ayaan sii guda geli doonaa sheegaantii jabkeygii baa dhacay god bay ku sii socotaa bariga afrikaay bariga afrikaay يأتي رحمتي وبرني نبضاي وانا ما يبالني وقراري ولا يذبل جمري liibaan aad baan ku salaamay soo dhawaada heesii wada barkad iyo boorada Thank you.
taasina waxay ahayd idal barqad oo maaragtay heestii boorama noo qaada dhigaysay imikana waxaanu geli doonaa insha allah waxaanu sii wadan doonaa barnaamijkeenii ayaanu sii wadi doonaa iyadoo markaasi aan baaxaa dhigi doono ereyadii iyo qodobadii ee markaasi heshiisku ahaa iyo guud ahaanba labada dhinac شرقرية برواوش بخارة إذا لا شرقرية برواوش ودولة عربيد ير كوتا الجيس كافريكا وحاي نقطي بسم الله اوكي waxaan markaa insha allah calaykum assalaam umul khayr insha allah khaluuda insha allah aad baan ku salaamayaa soomaalida magacyo badan bay doorkan moogti magacyo cajiib ay kusoo galaan facebooka markaa waxawey qaarkood waa khaluuda waxaan markaa insha allah maaragtay qaada dhigi doonaa barnaamijka gudihiisa isagoo dhexdaan kaga jirno
Itoobiya waxaana magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Itoobiya ku soo dhamaaday shir isdaba joog ah oo u socday ergooyin isugu jira aqoon-yahano iyo siyaasiyiin iyo qurbo joog ku qulqulaya halkaasi oo soo jeedinaya in maamul laga sameeyo gobolada Sool, Sanaag, Awdal iyo weliba Togdheer. shirka oo nuxurkiisu ah sidii shacabka ku dhaqan gobolada waqooyi ee Soomaaliya u samaysan lahaayeen maamul goboleed ka turjumaya doonista iyo rabitaanka shacabka ee labada maamul goboleed ee Golis State iyo weliba Awdal State oo ku midoobaya magaca Northern State of Somalia ka qaaday shir isdaba joog ah oo u socday ergooyin isugu jira aqoon-yahano Addis Ababa Itoobiya waxaana magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Itoobiya ku soo dhamaaday shir isdaba joog ah oo u socday ergooyin isugu jira aqoon-yahano iyo siyaasiyiin iyo qurbo joog ku qulqulaya halkaasi oo soo jeedinaya in maamul laga sameeyo gobolada Sool, Sanaag, Awdal iyo weliba Togdheer. shirka oo nuxurkiisu ah sidii shacabka ku dhaqan gobolada waqooyi ee Soomaaliya u samaysan lahaayeen maamul goboleed ka turjumaya doonista iyo rabitaanka shacabka ee labada maamul goboleed ee Golis State iyo weliba Awdal State oo ku midoobaya magaca Northern State of Somalia kaas oo waafaqsan nidaamka federaalka Soomaaliya. qodobkan nuxurka heshiiska maamul goboleedyada ee Awdal State iyo Golis State, Togdheer, Sanaag iyo Sool in labada maamul ay ku midoobaan dawlad guud oo magaca uu noqon doono Northern State of Somalia oo leh astaanta qaranka Soomaaliyeed oo ah in maamul hoostaga dawladda federaalka Soomaaliya uu noqdo. iyo weliba qodobka labaad oo ah in midnimada qaranimada Soomaaliya tahay mid muqadas ah. qodobka saddexaad oo ah in labada maamul ay iska kaashadaan nabadgelyada xuduudaha dowlad goboleedyada iyo weli xuduudaha dowlad deegaanka Soomaalida iyo xeebaha waqooyi. in ilaalada guud ee maamulkan cusub ee Northern State of Somalia ay si buuxda ula shaqeyn doonto dowladda federaalka Soomaaliya. in dowlad guud ee Northern State of Somalia ay si buuxda ula shaqeyn doonto maamul goboleedyada kale ee Soomaaliya ka jira oo ay Puntland ku jirto iyaga oo waafaqsan dastuurka Soomaaliya ayaa lagu sheegay warmutiyeed ka soo baxay shirka lagu soo gabagabeeyay Addis Ababa. sidoo kale qodobka lixaad ayaa tilmaamaya in maamul goboleedyadu ay ka midaysan yihiin siyaasadda difaaca dhaqaalaha iyo weliba difaaca dhuleed ee Soomaaliya. in dhammaan muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku dhaqan deegaanada Northern State of Somalia ay la xuquuq yihiin muwaadiniinta bulshada waqooyi ee Soomaaliya. in dowlad goboleedka Northern State of Somalia dastuurka saldhig u yihiin shariicada Islaamka iyo weliba dastuurka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. in xarunta caasimada maamulkaasi ay noqon doonto si ku meel gaar ah magaalada Buuhoodle ee xarunta gobolka Cayn. in xukuumadda iyo weliba dhismaha dowlad goboleedka Northern State of Somalia lagu soo doorto habka beelaha iyaga oo matali doonaan beelooyin ergooyin ka kala socda beelaha deegaanada Sool, Sanaag, Togdheer iyo weliba Awdal iyo gobolka Cayn oo ay isugu iman doonaan ergooyin kala matalaya. in xeerka ugu sareeya noqdo dastuur meel gaar ah sida ku cad mabda'a dastuurka iyo weliba qaab dhismeedka nidaamka dowladda iyo awaamiir lagu tilmaamayo waxaanu ku dhisan yahay mabda'a qaybinta awoodda hay'adaha xeerdejinta fulinta iyo garsoorka iyo weliba ayakataninta maamulka iyadoo ku midaysan beelaha heshiiskan dhex maray ee gobolada Sool, Sanaag, Awdal iyo Togdheer oo noqonaya 85% mujtamaca ku dhaqan gobolada waqooyi laga bilaabo maanta siday sheegeen. shirkan ayaa noqonaya kii ugu ballaadhnaa oo Soomaaliland cadaadis ku noqon doona oo ah kii ugu ballaadhnaa oo ay ku midoobaan gobolada inta badan waqooyiga Soomaaliya. dhanka kale kaasir wuxuu ahaa waryahan maartay isu sheegay Northern State of Somalia oo ka soo waramayay magaalada Addis Ababa. waxaan markaa daba imika maartay insha Allah dabeeqadii barnaamijka ayaan ku guda jirnaa insha Allah waxa weeyaan halkani waa Empire of the World oo idin soo daadaheynaya barnaamijkii faaqidada siyaasadda iyo arrimaha bulshada iyo taariikhda Soomaalida. haddaba waxaan markaa aan gudadhig rabaa inaan halkan baaq u soo jeediyo guud ahaan ay maartay baaqaas oo ahaa baaq aad looga wada riyaaqay oo ay guud ahaanba soo wada dirayaan dadka bulshada ku dhaqan gobolada Togdheer, Sool iyo Sanaag iyo maartay Awdal, Gabiile iyo Salal. guud ahaanba waxay dadkaasi aad ugu riyaaqeen garabka siyaasadeedkaasi dhawaan lagu dhawaaqay kadibna maartay soo sheegaan maamulkaas oo insha Allah ka dhici doona insha Allah madashiisa weyni iyo maartay gogasha ugu weyn uu ka dhici doono magaalada Buuhoodle. waxay aad markaasi ugu riyaaqeen guud ahaanba jabhadaha kala duwan ee jabhadaha gobolada waqooyi, jabhadda Awdal Movement Group oo uu hogaamiyo Suldaan Abubakar Cilmi Muwabar oo isaguna goobjoog ah oo meesha jooga. waxay guud ahaanba saraakiishooda iyo guud ahaanba ay u soo mariyeen hawada farxad
iyo salaamba usoo marinayaan iyo guusha la gaadhayba iyagoo markaa hambalyeynayo leh hambalyo ayaan idiin soo diraynaa. waxaa kaloo iyaguna hambalyo aan ka maqnayn jabhadda gobolada waqooyi ka mida oo iyaguna ah jabhadda dulmidiid caarihii dhowaan tegay jabhadaasoo markaasi imaka uu maaratay iisoo sheeg gacanta ku hayo ama maaratay taliyaha jabhadda uu yahay cabdi ram maaratay isoo sheega oo markaa isaguna usoo diraya oo le maaratay hambaryo iga gaadhsii. waxaa kaloo iyaduna markaasi s a c iyaduna halkeyga ay hambaryo ugu soo dirayaan jabhadaha s a c ee gobolka sool iyo sanaag iyo cayn ka dhisan oo markaa guud ahaanba gacanta ku haynta deegaankaasi gacanta ku haya oo markaa iyaguna usoo diraya. waxaan leeyahay taasi waxay ahayd hambaryadii iyo bogaadintii loo soo diriyey iyo barnaamijkii caawa ee halkaas ayaanu kaga bixi doonaa insha allah. waxaa idii daadaheynaya barnaamijka anigoo ah mukhtaar dulmadiid mukhtaar ismaaciil ibraahim. waxaan leeyahay habeen wanaagsan, habeenka inoo wacnaado, kulanti dambo xiisa leh. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi